السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك كثرا كنال كان برك ميستري مالي ونكسن ولي وعن كل هجرنا جبتركي هيدروكربونس أما هيدروكربون نضف ما أنت وعن قاتلنا 10 كلحات حدي الله إدمه وياهي methane is the primary compound in natural gas. methane waa isku iska koowaad ama ugu horeeya ee ku jira gaaska dabiiciga ah. ardayow gaaska dabiiciga ah waxaa ku jira isku dhisyo badan, more compoundsa ku jira, kuwaas oo ku kala badan percentage-ka ay ugu jiraan natural gaska dhexdiisa, boqolleyda ay ugu jiraan gaaska dabiiciga ah ayay ku kala badan yihiin. tusaale ahaan methane waxay ugu jirtaa gaaska dabiiciga ah waxay ugu jirtaa boqolkiiba 85 qiyaas ahaan 85%. gaasiska ku jira marka waxay kala yihiin methane, ethane, propane, butane iyo pentane. boqolkiiba 85 methane ayaa iskale oo ugu jirta. inta kale midka ku soo xiga boqolkiiba 10 ugu jiraa, boqolkiiba 10 ayuu ugu jiraa. kuwa kale toodna waa iska boqolkiiba 5 iyo boqolkiiba 2 iyo boqolkiiba 1 iyo waxaasay uga jiraan. ma fahamte? boqolkiiba 85 marka uu noqdo methaneka, kuwa kaletood way ka yaryar yihiin, way ka yaryar yihiin xaddigay uga jiraan. waaya tremendous quantities xaddi aad u ballaaran ama xaddi aad u weyn of natural gas oo gaaska dabiiciga ah. tremendous quantities xaddi aad u weyn ama aad u ballaaran of natural gas oo gaaska dabiiciga ah are consumed ayaa lagu isticmaalaa worldwide adduunyadan ama adduunyada korkeeda ama dunida korkeeda, because maxaa yeelay methane is an efficient. methane waa shidaal si hufan u gubanaya, si nadiif ah ku gubta. waana sababta loo dhahay methane is a clean burning fuel. methane waa shidaal si nadiif ah u gubta. it is used. methane waxaa loo isticmaalaa to heat homes, in guryaha lagu kululeeyo, to cook food, in raashinka lagu karsado, to power factories, in warshadaha lagu dhaqaajiyo matooradooda shidaal ahaan looga dhigo. methane waxay leedahay the following structure, qaab dhismeedka soo socda. methane qaabkan loo qori karaa waa markii la ballaariyo, marka kale waa CH4 ayaa loo qoraa. classification of alkane, classification of alkanes, qaybaha loo kala saaro ama qaybaha loo kala qaybin kara alkaynada. alkanes are classified. alkaynada waxaa loo kala qaybin karaa into 2 types, laba nooc. number 1
straight chain alkanes alkayno leh silsilado toosan ama silsilad toosan. labo branched chain alkanes alkayno leh branches laamo. waaya mid aan u qeexno waayahay mid aan u qeexno. what are straight chain alkanes maxaa la dhahaa alkaynada silsilada toosan ah. alkanes waa alkaynada in which each carbon atom kasta is bounded uu dabar la samaynayo ama uu ku dhagaayo to not more than wax aan ka badnayn 2 carbon atoms, 2 carbon atom. straight chain alkanes alkaynada silsilada toosan ah alkaynada silsilada toosan leh are also known xataa waxaa loo yaqaan as a normal alkane alkayne caadi ah waxaana loo soo gaabiyaa n alkane n smaller iyo alkane n smaller waxay u taagan tahay normal. examples tusaalooyin a silsilada toosan oo ka kooban 4 kaarboon sidaa ujeedid kaarboonka labada kaarboon ee labada dhinac jira mid hal kaarboon ku dhegan yihiin mid hal kaarboon ayay ku dhegan yihiin labada geesaha ah kan wuxuu ku dhegan yahay kan bes kanna wuxuu ku dhegan yahay kan oo kale kan oo keliya ku dhegan yahay laakiin labada dhexda ku jirta fiiri mid kasta 2 kaarboon oo ku dhegan yahay labada dhinacyada ka jirta kan wuxuu ku dhegan yahay kan iyo kan kan wuxuu ku dhegan yahay kan iyo kan waxaa loo yaqaanaa butane or ama n butane ama normal butane waa isku mid magacaabista gadaal ka baran doonaa. b waa 5 kaarboon straight waay silsilad toosan straight chain alkane waxaa loo yaqaanaa bentane or n bentane ama normal bentane labada geesaha ah waxay ku dhegan yihiin min hal kaarboon kan wuxuu ku dhegan yahay kan kanna wuxuu ku dhegan yahay kan laakiin saddexdan dhexda ah min 2 kaarboon ay ku dhegan yihiin kan wuxuu ku dhegan yahay kan iyo kan kanna wuxuu ku dhegan yahay kan iyo kan kanna wuxuu ku dhegan yahay kan iyo kan. waayahay number 2 branched chain alkanes silsilado laamo leh. what are branched chain alkanes waa maxay silsiladaha leh laamaha. are alkanes waa alkayno ama waa alkaynada in which at least ugu yaraan 1 carbon atom hal carbon atom oo iyaga ka mid ah is bounded uu dabar la samaynayo ama uu ku dhegan yahay to more than wax ka badan 2 other carbon atoms 2 kaarboon oo kale. arjow 2 maxaa ka badan marka 3 midka baranjiga samaynaya 3 kaarboon oo kale ayuu ku dhegaya ardayo. tusaaleyaalkan aan fiirino examples structurekaan fiiri waa kan kaarboonka baranjiga uu ku dhegan yahay waa kana baranjigii meequu ku dhegan yahay bal aan tirino marka asaga laga saaro 1 kan baranjiga waa ku dhegan yahay 2 kanna waa ku dhegan yahay 3 kanna waa ku dhegan yahay waa kan intaan waay silsiladan tii toosneed waay laakiin baranjigaas ayaa ka dhashay ama ka abuurmay waxaa loo yaqaan 2 methyl butane. b silsiladii toosneed waa tan ama parent chain waa baran doonaa parent chain kaarboonka lagu dhegan yahay waa kan ee silsiladan ay ku dhegan tahay maaragtay silsiladan gaaban ee baranjiga ay ku dhegan tahay ama laanta ay ku dhegan tahay kaarboonkan kan lagu dhegan yahay waay meeqa kaarboon oo kaleeto loo ku dhegan 1 iyo 2 iyo 3 saddexda dhinac ka jiraan waxaa loo yaqaanaa 3 methyl hexane. parent chain silsilad waalid ah maxaa la dhahaa silsilad waalid ah
maxaa saddex keenay waalid chemistryga ardayow magacaabista 3 methyl hexane hexane waa silsiladii waalidka ahayd ama baranjigii 3 methylna waa baranjigii silsiladan ka farcamay ama silsiladan ay dhashay laanta ay dhashay waa marka fiiri waalidka iyo ilmaha ay dhaleen tusaale aabbaha iyo ilmaha uu dhalay magac ahaan yaa soo hormaray ilmaha soo hormaray aabbaha dambe sidoo kale marka magacaan uu u dhigmaa chemistryga ah that is why barantiga meesha soo gelisa marka 3 methyl waa ilmihii la dhalay hexanena waa shaygii dhalay ama waa waalidkii marka silsilada dheer waxay u dhaqmeen as a parent waalid ahaan baranjiga ka farcamay ama ay dhashayna wuxuu u dhaqmayaa ilmihii oo waa 3 methyl marka that is why parent chain loo dhahay ama ereyga parent oo waalid ah that is why uu chemistryga u soo galay sababtaasuu usoo dhexgalay chemistryga inaa fahamteen u malaynaa markasta magac ugu dambeeya parent chainka waaye waalidka waaye silsiladii dheeraad waaye ee kaarboonada badan lahayd haddaanu qeexaynaa what's a parent chain waa maxay silsilad waalid ah waa is the longest spread carbon chain of carbon atoms waa silsilada ugu dheer ee ka kooban kaarboonyo ama kaarboono isku dhegdhegan waxaana loo dooran karaa ama ay noqon kartaa straight mid toosan ama curved qalooc mid qaloocan exampleskan aan fiirino boxkan waxa ku jira waa parent chain si qalooc ah loo doorto sidoo toosan maxaa loogu dooran waayo sababtoo ah qalooca ayaa wuxuu ka kaarboono badan yahay sida toosan tooska waa 5 kaarboon 1 2 3 4 laakiin qalooca waa 6 1 2 3 4 5 6 marka boxka lagu geliyo si looga sooco baranjiga si looga sooco laanta marka boxka waxa ku jira waa parent chain waxa aan boxka ku jirna banaanka joogana waa laanti ka farcantay laantan kaarboonkan ku dhigan tahay hadda waxaa loo doortay si toos ah straight parent chainka markaana qalooca loo doortay markaan qaloocan waa loo dooran karaa oo sidaanna waa 6 sidaan toosanna waa 6 laakiin sidaan qalooca yarka ah waa 5 marka adaa tusaale lagugu tusinaa ardayow in qaloocna loo dooran karo toosna loo dooran karo laakiin tan labaad qaloocna waa loo dooran karay oo waa 6 waxaa loo yaqaanaa parent chain side chain maxaa la dhahaa ama baranj laan waa maxay laan what are side chains waa maxay laamo are short chains waa silsilada gaagaaban attached kuwaas oo ku dhegan to the parent chain silsilada waalidka ah the side chain laanta is also known hataa waxaa loo yaqaan substituent or branch saa u jeedaan laan 3 magac ay yeelatay beejkan beej kalena hal afaraada ku yaal 4 magac ay leedahay side chain waa la dhahaa substituentina waa la dhahaa branchina waa la dhahaa alkyl groupna waa la dhahaa tusaalooyin examples labadii structure haddaan aan soo aragnay parent chainka waa kan laakiin markaan boxka waxaa lagu geliyey side chain laanti uu dhalay ama ka dhalatay ama ka soo farcantay parent chainka silsiladan waalidka ah ama longest chain number 2 longest chainka markaa waxaa loo doortay si qalooc ah hore usoo aragnay laakiin boxka waxaa lagu geliyey side chain laanti alkyl groups
oo iyagana la macno ah laakiin marka waa lagu qeexayaa sida ay u samaysmaan waa lagu maraa. What are alkyl groups ama what is alkyl group? waa maxay alkyl group? Alkyl group is an alkane that has one hydrogen less. waa alkane laga gooyay hal hydrogen. waa ka qaabka loo sameynayana alkane minus one hydrogen alkyl group aa soo baxay. ama tusaalahan fiiri methane remove one hydrogen atom maxaa kuu soo baxay methyl CH3. cashirkeenni maanta oo aan ku soo qaadanay classification of alkanes ardayow intaas ayuu nooga egyahay. haddii ay tahay marka kuugu horreysay ee aad soo booqato kanaalkan Bara Chemistry, fadlan subscribe, like, share, commentary ka bixi. Facebook page-ka aan ku leenahayna ama aan ku leenahay fadlan soo follow garee. haddii aad ka mid tahay asxaabtii horay u xirneed kanaalkan Bara Chemistry-na fadlan share-ta badi, like-tana badi, commentary ka bixi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.